howlgal uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka KwaZulu Natal khudbadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya wasiirka xafiiska waraabka dawlad deegaanka Soomaaliyeed gudoomiyaha degmada Doolow wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland aniguna waa libaax barqiye wax yar kadib aynu isku soo laabano isku soo laabad wanaagsan dhamaantiinba howlgal uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka KwaZulu Natal Dami Ntuli ayaa lagu beegsaday dadka ajaanibta ah oo si sharci darro ah ku jooga South Africa sidoo kale in ka badan 30 ajaanib ah oo bila sharci ah iyo kuwa haystay sharci been abuur ah ayaa lagu qabtay howlgal ay fuliyeen laamaha kala duwan ee dawladda oo ay kamid ahaayeen waaxda migration sidoo kale howlgalka ayaa lagu baaray badeecadaha ay iibiyaan ganacsatada bila sharciga ahayd barasaabka gobolka KwaZulu Natal Dami Ntuli ayaa dhawaan wacad ku maray in gobolka uu ka nadiifin doono soo galootiga sharci la'aanta ah oo loo arko in ay culays ku yihiin haddaba warar ka soo baxay maxkamadda ayaa amartay in aan la masaafurin karin shisheeyaha nabadgelyo doonka ah ee ku cusub Koonfur Afrika ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa khudbadii u jeediyay dhawaan ku xusay mowduucyo ay kamid yihiin xaaladda dhaqaalaha nabadgelyada iyo xiriirka gobolada khudbadiisa ayuu xooga ku saaray sidii loo xasilin lahaa gudaha Itoobiya gaar ahaan gobolka Amxaarada iyo Oromada oo uu tilmaamay in ay muhiim tahay in xal waara laga gaaro nabadgelyada si looga hortago in xiisaduhu ay sii socdaan sidoo kale isagoo ka hadlay muhiimadda Itoobiya ee ah inay hesho marinbadeed wuxuu xusay qorshayaal Itoobiya u dejisan in ay ka faa'iideystaan dekedaha gobolka si ay u kobciyaan dhaqaalaha taas oo loo fahmi karo inay tahay isku day Itoobiya ku raadinayso marinbadeed maadaama aysan bad lahayn haddaba khudbadiisa ayaan si toos ah loogu xusin Soomaaliya laakiin khilaafka diblomaasiyadeed ee jira ayaa bilihii u dambeeyay si xoogaysanayay Itoobiya iyo Soomaaliya tan iyo markii Itoobiya iyo Somaliland ay kala saxeexdeen heshiis muran dhaliyay kaas oo ay Soomaaliya ku gacan sayrtay iyada oo Soomaaliya ay ku tilmaantay heshiiskaas mid baalmarsan xeerarka caalamiga ah sheegtayna inaysan marnaba ogolaan doonin in qayb kamid ah dhulkeeda lagu wareejiyo dal kale waxayna arintani dhalisay xiisad cusub oo ka dhex aloosan labada dal wali waxa aynu ku jirnaa Itoobiya ee wasiirka xafiiska waraabka dawlad deegaanka Soomaaliyeed mudane Maxamed Fataax Maxamed oo ay weheliyaan xubno kamid ah howlwadeenada xafiiska ayaa kormeer indhayn ah ku sameeyay mashruuca waraabka oo uu xafiiskiisu ka fuliyay degmada Sagag ee gobolka Nogob mashruucan oo hadda dhismihiisu meel wanaagsan marayo isla markaana leh keenaala dhaadheer oo dhan 6 kilomitir iyo 2 barkadood ayaa loogu talagalay in looga faa'iideysto dhul dhan 300 oo hektar waxaana la rajaynayaa marka la dhameystiro in uu door muhiim ah ka qaadan doono in bulshada degmadaasi wax soo saar aad u tiro badan soo saaraan aynu u kacno xagga iyo Soomaaliya gudoomiyaha degmada Doolow Maxamed Xuseen Cabdi Lafey ayaa booqday mashaariicda beeraha iyo ceelbiyoodka laga hirgelinayo degmada iyo deegaanada hoos yimaada mashruucan beeraha oo loogu talagalay in ay ka maarmaan qoysaska barakacayaashu hay-adaha ay ka sugaan kaararka raashinka iyo lacagaha la siiyo maadaama oo deegaanku leeyahay dhul beereed ballaaran waxna ay kala soo bixi karaan ayaa loo iba furay sidii ay wax ugala soo bixi lahaayeen gudoomiyaha oo kormeeray mashruuca biyagelinta degmada oo meel gabagaba ah maraya ayaa ku biiriyay
barakacayaasha sidii ay dhulka wax ugala soo bixi lahaayeen, isagoo dhanka kale kula dardaarmay in kambaniga gacanta ku haya ceelbiyoodka la dardargeliyo shaqada. wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa dhambaal hambalyo ah u dirtay madaxweynaha cusub ee Botswana Duma Boko. qoraal ay soo saartay wasaaradda khaarijiga Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku bogaadisay doorashada ka qabsoontay dalka Botswana oo loogu doortay madaxweyne Duma Boko, siday warisay wakaaladda wararka ee loo soo gaabiyo Solna. waxaa xukuumadda Somaliland ay shaacisay inay ka go'an tahay cilaaqaad iyo iskaashi ay la yeelato dowladda Botswana. waxaa kaloo ay intaas ku dartay inay doonayso inay xoojiso xidhiidhada labada dhinac ee Somaliland iyo Botswana. wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay hoosta ka xariiqday inay rabto inay mustaqbalka ifaya ay wada abuurtaan. sidoo kale Duma Boko ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Botswana ee 2024 taas oo ahayd doorasho taariikhi ah maadaama ay ahayd markii ugu horeysay ee xisbiga mucaaradka ee Umbrella for the Democratic Change oo loo soo gaabiyay UDC uu awoodda kala wareegay xisbiga Botswana Democratic Party oo loo soo gaabiyay BTP oo dalka maamulayay in ka badan 50 sano tan iyo xornimadii Botswana. Boko oo taageero xoogan ka helay shacabka ayaa ku guuleystay kadib markii uu soo bandhigay qorshe siyaasadeed xooga saarayay horumarinta iyo isku dhafka bulshada, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kala duwanaanshaha dhaqaalaha. doorashada 2024 waxay noqotay mid ay shacabku muujinayeen taageero badan isbedelka siyaasadeed ah, taas oo keentay in UDC ay codad badan ka hesho deegaano badan oo muhiim ah. kadib markii la xaqiijiyay guusha Boko, waxaa si rasmi ah loo dhaariyay bishii November 2024 waxaana uu ballan qaaday in dowladdu ay si degdeg ah u bilaabi doonto dadaal hufan oo dhaqaalaha Botswana ah oo hadda si aad ah ugu tiirsan dhoofinta dheemanta. sidoo kale Boko waxa uu tilmaamay muhiimadda uu siinayo in uu abuuro nidaam daahfuran iyo dowlad si rasmi ah u maamusha kheyraadka dalka, isagoo ku celceliyay muhiimadda ay leedahay in isbedel dhab ah la sameeyo si loo xaqiijiyo cadaaladda iyo horumar loo wada dhan yahay. taageerada mucaaradka oo xoogeeda sii kordhisay sanado badan ayaa keentay in BTP lagaga adkaado doorashadan, taas oo astaan u noqotay kacdoon siyaasadeed iyo mid dadku ay doonayeen hogaamin cusub oo ka baxsan xisbiga talada hayay 50 sano. wararkeeni toddobaadluhu halkaa ha inoo joogo intaynu kanka ku xiga aynu ku kulmi doono haddii eebba idmo.